waa sidii xaaladda dadka barakacyaasha fatahaadii biyaha webiga Shabeelle kadib xaaladda dadka barakacyaasha ayaa aad u sii liidanaysa xilli maanta aan booqanay xerada barakacyaasha ifka aakhira ee ku taala xaafadda Doonsubogle ee duleedka magaalada Beledweyne. Dadkan ayaa ku sheegaya marka aad la sheekaysato inay ka soo barakaceen gobolada Baay iyo Bakool, Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe iyo deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. marka horena ay ku shaqaysanayeen xoogooda waxayna ahaayeen dad beeraley ah waxaana dalagoodii ka baabi'iyey cayayaanka anyaxa waxaana dadkaasi maanta booqday gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali oo si dhow oo la socda xaaladda dadka barakacyaasha qaar ka mid ah oo la hadlay warbaahinta raadiyo wadani TV xilli booqashadan aan ku guda jirnay ayaa waxay ka dalbadeen hay'adaha koolgala magaalada Beledweyne maamulka gobolka Hiiraan wasaaradda beeraha dowladda federaalka Soomaaliya tan Hiirshabeelle in ay gargaar ay la soo gaaraan maadaama dalagii ay beeranayeen ay ka baabi'iyeen fatahaadii ka dhacday magaalada Beledweyne. ayaa la yiraahaa waxaan nahay dad soo barakacay oo macnaha beerihii anyax ka laayay iyo waxaan na qabatay qafaafo silacsan 2 sano ayaan meeshaan ku cadilanahay wax noo qabtana ay jirin marka waxaan codsanaynaa hay'adda Soomaaliyeed inay wax noo qabato ayaan codsanaynaa kulleeyba waa noo jeedin saxariirta isla meesha lagu haasto ilaa ay haddana wax noo qabtaan marka hore soo barakacnay soo barakacayana marka waa maasha Allah isla cadilanahay wax noo qabtay ilaa ay haddana ma laha maxay iska dhisanay ilaa ay hadda wax noo qabtay ma laha ceel ma lahan biyo ma lahan baad ma lahan arad waa ku dheeraad nafaqo waa noo dheeraad istafaadkaas ayaa nahay biyo waa noo darin waxaan waa noo darin naftigooda kor cunaanaa waxaan cunay korka dhamaan bahal iyo adiga goryaan ay wax baan kacay ilaa ay hadda wax hay'adda noo qabatay ama wax noo qabtay marka hore assalaamu calaykum wa calaykum salaam wa barakaatuhu waxaan meeshaan aan ku nahay baraka aan ka soo barakacnay meel Bakool la yiraahdo waxaan codsi ku nahay hay'adaha aan codsi ku nahay inaan na kaalmeeyo beerihii ku nooleen inaan ma aragti oo anyax nagu cunay maadida koowaad oo biibaha badan oo isdaba kacday ay jirto oo ma aragti wixii dhaqaale aan haysan beerihii aan ka maalgelinay mar ahayn laba ahayn ay soo noqotay wax dhaqaale oo aniga hadda beer ka maalgashan ayn kasto lahayn aan nagu sababtay inaan ma aragtan soo barakacano oo soo aan ku soo qayb galno kaam la yiraahdo oo FIA kara aan ku sugnahay oo magaalada Beledweyne ay ku taalo ilaa saacan ilaa hadda laga joogo waxaan bilood aan joognaa 6 bilood meelaha meesha aan joogno wax hadda noo imaado oo nagu soo kontaroolay aan lahayn maanta oo ka faraxsanahay ninka Sheekh Xuseen oo la yiraahdo armada bulshada oo maanta naga soo booqday inaan ma aragti aan codsigayn baahidayna inaan u sheegano oo inaan waxna ugu qabto aan jecelnahay inaan meeshina naga kiciyo oo gogolaan haysanin oo hooyan haysanin oo guriyaan haysanin oo cunaan haysanin intaas aan codsanayna hay'adaha oo kaalmada bixiso Bakool baan ka soo barakacay bay Bakool waa maqasheen oo Bakool baadiyadeedan ka soo barakacay dhanka kale horjoogaha xerada ifka aakhiro Islow Cumar Ogaas Raagi ayaa la hadlay TV-ga Wadani Radio TV wuxuuna ka warbixiyay xaaladda guud ee xerada dadka barakacyaasha ee ku sugan deegaanka ifka aakhiro ee duleedka magaalada Beledweyne. Mas'uulka noogu horeeyay soo booqday wuxuu ahaa gudoomiyaha arrimaha bulshada Sheekh Xuseen aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinaynaa bulshadiisa aad bay noo farxad gelisay rajadii naga dhimatay dib ayay noogu soo noolaatay in taasna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay markaan u soo laabto xaaladdan kaamka bacdama aan gudoomiyihiisa aan ahay kaamkan waxaa ku nool 315 qoys dadkaas oo ka soo kala barakacay deegaano kala duwan oo gobolka Hiiraan hoos yimaado dadkaas asalkooda noloshooda waxay ku tiirsaneed beeraley beerihii maray abaar ku timaado oo anyax ay ku habsaday iyo mar biibaxa waxa la wixii haysteen neefafkii irmaanka u xirnay
hataa waa u iibiyeen si ay dhulkii ugu maalgashtaan biibaxadii ugu dambeysay ayaa biyihii khayraad ahaayo oo dalag ahaayo beeraha ku yaalina la tageen waxaan codsi awal u diraynaa madaxda dawladda federaalka iyo dawladda goboleedka maamulka Hirshabeelle iyo madaxda gobolka iyo degmada iyo hay'adaha samafalka oo dhammaan deeqda bixiya iyo cid alle cidii waxa haysto dadka muxaadiniinta Ilaahay wax siiyay dhamaantood waxaan ka codsanaynaa in dadkan gargaar caalami u baahan yihiin gargaar bay u baahan yihiin dadkan oo waa sheegnay haddana waa ku celinayna bacdama mas'uulkooda madaxdooda ee dadka madaxnimo u doorteen aan nahay si degdeg ah in dadkan looga soo gaaro raashin daawo biyo cunno guri hooy ayaan codsanayaa mid kale awlaadii waxbarasho ma laha dugsi ma laha quraan ma laha iskool ma laha maxaa anagu ummadda xuquuq ma kuleemiya dalka xuquuq ma kuleemiya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ugu dambeyntii gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada gobolka Hiiraan Sheekh Xuseen Cismaan Cali ayaa yiri dhibaatada gobolka Hiiraan haystay qayb ka tahay dhibaatada magaalada beledweyne haystay qayb ka tahay yani xaqiraad wax la yiraahdo iyo meelaha qaarkood aan waxba loo geeyay waxba aan la siinay iyo mucaamaladii oo marka qaarkood la siyaasaday ama lagu bixiyo reer hebel lagu bixiyo arina qaba karta ma xaarid inagana qaali ka mid arrin suura gali karta insha Allah hadii la yiraahdo wali hada mucaawanooyin badan foodeen ugu soo hayaan tii Djibouti hada kamid oo dagayso Turkiya wax soo wado qolada OIC boqor Salmaan wax soo wado wax badan soo wado si taxadir ah loo kala doonaa si taxadir mucaawanadaas mid qabaar lagu leeyahay ma noqon doonto mid habeenkii la maamulo ma noqon doonto insha Allah waa laga fidisana waa laga fikiraa waa sheekaysanaa waa laga tashanaa intee la geeyaa intee lagu bixiyaa yaa daran yaa dhibaataysan ayaan ku dabaqaa insha Allah diilayna Cabdinuur Cismaan Adan Carays wadan radio and TV magaalada Beledweyne